بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمان شكا الله وأبوكاتي عبد الرزاق عمر نوراني وكسوغان دالك إنجريس كمغالدان لندن. waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan ma aragtaaye hambalyo Eid Mubarak aan la wadaago dadka ku nool gobolka Shabeellada Hoose, guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolada Koonfureed dadka ku nool, gaar ahaan dadka ku nool gobolka Shabeellada Hoose ayaan la wadaagayaa hambalyadan Eid Mubarak aan idin leeyahay. Waxaan ka tirsanahay aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolkan Shabeellada Hoose, waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooda ka tirsanahay. waxaanan ku suganahay ku noolahay magaaladan London. walaalayaal, waxaan idin soo dirayaa Eid Mubarak, hambalyaan idin leeyahay. kullu caam wa antum bikhayr. Eid wanaagsan aan idin leeyahay insha Allah. waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto inaan soo dhaweeyo TV-ga cusub ee Shabeelle TV, Shabeellaha Hoose TV, janaalka loo sameeyay YouTube-ka. waa arrin tallaabo hore loo qaaday. annagu haddaan waxgaradkii aqoon-yahankii siyaasiyiintii ka mid nahay qurba joogta aan ku sugannahay, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa tillaabadaas hore loo qaaday. waanu ku faraxsannahay, waana gacanna waan ka geysanaynaa, wax walbana diyaaran ula nahay inaan maaragtay kala shaqayno insha Allah. tillaabadaas hore loo qaadayna in la taageero, lala shaqeeyo, lala laabo ayaa loo baahan yahay insha Allahu tacaala. hambalyada ciida anoo ka faa'iideysanaya, waxaan rabaa inaan maaragtay shacabkayga ku nool gobolka Shabeellada Hoose dad dhibaataysan u badan, oo aan amni haysan, oo aan nolol haysan, oo aan maamulo fiican haysan, oo maaragtay dhibaatooyin kala duwan uu ka jiro gobolkaas, inaan horta hambalyada ciida la wadaago, kadibna aan arrimo yar oo faahfaahin ku saabsan arrimaha gobolka aan ka hadlo. sidaad la socotaan walaalayaal, gobolkan Shabeellada Hoose wuxuu ku yaalaa koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana magaalo madax u ah ama loo aqoonsan yahay magaalo madaxdeedii oo gobolka ay ahayd magaaladan Marka, degmada Marka. gobolka dhaqaalihiisu wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. gobolkan wuxuu xuduud la leeyahay gobollo badan oo ay ka mid yihiin gobolka Banaadir, gobolka Shabeellaha Dhexe, gobolka Baay, Jubbada Dhexe iyo Badweynta Hindiya. gobolkan Shabeellada Hoose waxaa mara webiga Shabeelle, waana meelaha maaragtay barwaaqo sooranka Soomaaliyeed uu ka mid yahay. waagii hore gobolkan 1884 xilligii Talyaaniga, gobolkan sidiisaba wuxuu ahaa gobol iskiis u taagan uu ahaa. maasha Allah run ahaantii gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada ugu quruxda badan dalka Soomaaliya, sababtoo ah wuxuu leeyahay deegaano aad u ballaaran oo doog ah. sidoo kale waxaa ku yaala beeraha waaweyn ama beero waaweyn oo loo yaqaano aseendooyinka, kuwaasoo inta badan dacalka ku haya webiga Shabeelle oo dhex mara gobolka. deegaanada ayaa ah kuwa aad u soo jiita dadka dalxiisayaasha ah. deegaanada dalxiiska ku wacan waxaan ku xusi karnaa beeraha Afgooye, taasoo isku xirta caasimadda iyo xarunta gobolka ee Marka. sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa kalluumeysiga oo ay dadka aad uga helaan. wuxuu leeyahay gobolkan dhul aad u qurux badan iyo xeebo indhahaaga soo jiidanaya. xeebahaas waxaa ka mid ah magaalada Marka, waxaa ka mid ah Baraawe, waa ka mid ah. sidaad la socotaan gobolka hadda magaaladiisa caasimadda Koonfur Galbeed waa degmada Baraawe waaye. maasha Allah. gobolka magaalo madaxdiisana waxa waaye Marka waaye. wax soo saarka gobolka Shabeellada Hoose waxaa ugu horeeya, waa gobolka ugu horeeya Soomaaliya ee dhanka wax soo saarka waa gobolkan Shabeellada Hoose. khayraad badan baa Ilaahay ku maneystay, khayraadkiisa lama soo koobi karo. maasha Allah, dad badanaa degan gobolkan. lahjadaha looga hadlo gobolka waxaa looga hadlaa lahjado badan, kuwaasoo ku xiran qabiilada ay kasoo kala jeedaan. lahjadaha looga hadlo waxaa ka mid ah maaragtay afkan Maayga ka mid ah, waxaa ka mid ah afkan maaragtay Jiida ka mid ah, afgara ka mid ah.
maaragtay maasha Allah aftuniya kamida waxaa kamida afkan shaanshida kamida afaf badanaa looga hadlaa gobolkan Shabeellada Hoose ee degmooyinkiis waxaa kamida Marka, degmada Afgooye, degmada Wanlanweyn, degmada Baraawe, degmada Qoryoole, degmada Kuntuwaare, degmada Sablaale, degmada Janaale. waxaa kaloo jiro maaragtay meelo badan oo degmooyin u qalma in gobolkan degmooyin laga dhiga oo maaragtay ay kamid tahay Kuyin Barrow kamid tahay ay kamid tahay Caanoole iyo Sabiibi ay kamid yihiin Shalaambood ay kamid tahay maaragtay Leega ay kamid tahay marka meelahaasna way imaan doontaa in loo aqoonsado degmooyin insha Allahu tacaala marka waxaa loo baahan yahay dadka gobolkan degan inay gartaan inay yihiin dadka Soomaali ugu qanisan inay yihiin inkastoo dadka Soomaali hadda ugu qanisan loo aqoonsaday ama loo yaqaan dadka hubeysan ama dadka maaragtay dagaalada ka soo qayb galay dadka gobolkan degan waa dad nabadda jecel dagaalan kama soo qayb galin waa dad dulmi lagu hayo ilaa hadda la korsaaray insha Allah dulmigaasna uu dhamaan doonaa insha Allah xaq iyo baadil meel ma wada maraan insha Allah war ku sii dheeraan maayo waxaan kamid ah aqoonyahankii deegaankaas xoog badan aan haynaa wax badan aan haynaa maadaama siyaasiyiintii deegaankaas u soo baxday aan kamid nahay waxaan rabnaa gobolkeena inaan usoo istaagno gacmaha isqabsano oo dadkeena dhibaatada si looga bixin lahaana aan ka shaqeyno insha Allahu tacaala madaxda Soomaaliyeedna aan la xisaabtano bulshada caalamkana aan ka dhaadhacsiino u sheegno dhibaatooyin gobolkan ka jiro mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay hambalyo ciid wanaagsan waxaan kaloo rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto baaq u jeediyo la hadlo xildhibaanada gobolkaas laga soo doorto maaragtay ku jira dowladda federaalka ah iyo golaha senatka iyo tan koonfur galbeed maamulkeeda ku jiro xildhibaanada waxaa looga baahan yahay inaad maaragtay u soo istaagtaan gobolka ood u hadashaan gobolka haddii xildhibaan ahaan oo maaragtay gobolkaagii ama degmadaadii iyo dadkaagii aysan kusoo dooran oo suldaan meesha ku keenay ama ugaas ama malaaq sideedaba meesha ujeedka lagu keenaya waxay tahay dadkaaga inaad matashid dhibaatadooda aad ka hadashid dheeftooda aad ka hadashid horumarkooda aad ka hadashid amnigooda aad ka hadashid mas-uuliyiinta dowladda ku jira waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas fiiro gaar u yeeshaan gobolkan waxqabadkiisana ay usoo jeestaan ka hadalkiisana ay usoo jeestaan haddaadan ka hadlin maanta gobolkaaga aadan ka hadlin dad kalaa ka hadlaya sheeganaya marka si taas looga weecdo waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyadda loo igmaday gobolkan hadday ay maaragtay yihiin siyaasiyiin ku jira dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedba xilka ayaguu saaran yahay kow annagu hadda shacabaan nahay aqoonyahaankii aan nahay talooyin baan siinaynaa siyaasiyiintii aan nahay xil ma hayno laakiin qof walboo kursi ku fadhiya oo gobolkaas degmo matala degmadaas dhibaatadii ka dhacda asaga ilaahay u xisaabin doonaa dadkana inay u turaan oo dadka u hadlaana loo baahan yahay insha Allah ku sii dheeraan maayo hadalka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan baaq u diro odayaasha iyo nabadoonnada gobol ka soo jeedo inay gacmaha isqabsadaan dadkaasna sidii loo samata bixin lahaa laga hadlo gobolka dadkii deganaa badankiisa waa la barakiciyey muqdisho xirooyin baa lagu soo ootay meeshaasaa barakacyaal loogu wacaa waxaa loo baahan yahay inaan hay-adaha kala xaajoonno arrintaas guddiyaan u saari doonaa waan ku jirnaa hawshaas sidii dadka dib u dejin loogu samayn lahaa loo maalgelin lahaa beerahoodii iyo guryahoodii ugu soo noqon lahaayeen kuwa degmooyinkooda weli ku suganna oo amni darrada haysata oo maaragtay ama al-shabaab ee amni darro ku hayso ama mooryaan isbaaro dhigatay ee amni darro ku hayso ayadana maaragtay in amniga sidii loo soo celin lahaa aan ka shaqayno insha Allah cid walba la kaashan doonaa insha Allah ku dheeraan maayo hadalka reer gobolka Shabeellada Hoose waxaan idin leeyahay hambalyo ciid wanaagsan waxaan ku faraxsanahay haddaanu gobolkaas ka soo jeedno chanaalka Shabeellaha Hoose TV oo channel YouTube loo sameeyay siduu gobolka uga warbixin lahaa maaragtay waana muhiim sababtoo gobolkaas dhibaatooyin ka dhaco BBC-na kama hadasho laanta VOA-na kama hadasho marar badan waxaan isku daynay inaan BBC iyo VOA la xiriirno dhibaatooyin gobolka dhacaya aan la wadaagno ka hadalno cambaarayno laakiin way naga diideen inay codka naga qaadaan waxaa ka mid ahayd dhacdooyinkii ugu dambeeyey
foosha xumaa ee ka dhacay degmada Afgooye ee gabdhaha yaryarka 3 jirka 4 jirka lagu kubsaday oo dadkii kubsadan ilaa hadda aan la soo qaban sharci la soo hor istaagin waxaan isku daynay inaan VO la xiriirno aan baarayno dowladda federaalkana aan cadaadis ku saarno tan maamulka Koonfur Galbeed in arintaas ay maaragtay dadkii dhibka geystay ee arinta foosha xun sameeyay in cadaalad la horkeeno laakiin VOA BBC way noo diideen inay codka naga qabtaan ujeedooyinka isaa u sameynayaan ma naqaan marka gobolka inuu saxaafad madax bannaan oo asaga maamulo inuu helo waa waxaan soo dhaweynayno codkeenana aan ku gaarsiin karno bulshada caalamka iyo dadkeena shacabka ay ku nool gobolkaas mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iideysto tacsi u diro dhammaan dadka ku dhibaatooyinka kala duwan ay ku soo gaareen gobolkaas walaalayaal dhibaatooyinkiina waan ka warhaynaa waana dokumenti gareynay wax walbana waan ognahay wixii aan ogeyna waxa waay xiriir baad nala soo sameyn kartaan waxaad la soo xiriiri kartaan shabeellada hoose TV channel YouTube ka la soo xiriiri kartaan haddii loo baahdo taleefonadeena iyo xiriirkeena waa idin sii karnaa dhibaatooyinka gobolkaas ka dhacay waxaa loo baahan yahay dadka saxafiyiinta ah ee gobolka ku sugan ama xamar ku sugan inay ka hadlaan ayna soo gaarsiiyaan cod dheer iyo cod gaabanba meel walba aan ku gaarno insha allahu tacaala haddaadan hadlin cid ku hadlaysa male dadka gobolkaas mahmahayadooda waxaa ka mid a nankoo baari badane dhaxal awkaas kii gafi oo micnaheed uu yahay qofkii ka hadal badan dhaxalkii aabbaha ayuu kula qaybsadaa marka dadka in loo hadlo oo maaragtay codkoodii iyo dhibaatadoodii iyo maaragtay baahidoodii la ogaado waa wax weyn waan soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala horu socod fiican baan idin leeyahay hambalyaan idin leeyahay ciid wanaagsan baan idin leeyahay hadalkaygu wuxuu isugu jiraa guubaabo dhiirigelin abaabul iyo hambali iidoo isugu jira iyo baaqyaan u diray madaxda ama siyaasiyiinta ku jira dowladda federaalka iyo oday dhaqameedyada nabadoonada waxgaradka aqoon-yahanka kulli qaybaha kala duwan ee gobolkaas dhalinyarada ururada bulshada haweenka kulli waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado gobolkeenina aan gacanta ku dhigno oo maaragtay nabadiisii aan soo ceshano ciidamo in loo sameeyo nidaam loo sameeyo marar badan la isku dayay mar kale aan ka hadli doonaa arrimahaas insha Allah hambalyaan idin leeyahay ciid wanaagsan aan idin leeyahay ilaahay waxaan ka baryaa ka rajaynaa dadka gobolka degan in cudurkan maaragtay coronavirus-ka oo ilaahay dhinac marsiiyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan baan u duceynaynaa insha Allah in maaragtay taxadarna la muujiyo talooyinka caafimaadna la qaato maadaama dadka gobolka degan ay dad aad u nugul ay yihiin masaakiin ay u badan yihiin dad maaragtay dhibaato 30 sano ku jiray ka badan ay yihiin in cudurka laga digtoonaado gacmaha la iska dhaqo social distance waxa la dhaho in la sameeyo la kala fogaado oo aan la salaamin oo mar walba nadaafada lagu dadaalano waan ugu baaqayaa insha Allah warkayga waxaan ku soo koobayaa hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair wa abukaat Cabdirasaaq Umar Nuuraani oo idinkala soo hadlaya magaaladan London wadanka Ingiriiska assalaamu calaykum wa rahmatullaahi